بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد أن أولا وحنوم هتنقي إلهي سبحانه وتعالى يسور تجري إنك قيب قاتو برنامج كان ووضع والعالكي عبد الرحمن قيستير وجهرين مقعي محمد صالح ماري waxaan ka mid ahay dhalinta afmaalka ama halabuurka ee ku dhaqan magaalada Boorame sidoo kale waxaan u kula jiraa xagga buuga qorida oo aan 2-3 buug aan ugu qoray jiraan waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijkan tusaalaha iyo toosinta fiican leh magaciisu ku suntan yahay u heeli haliyeygahan kale runtii waa barnaamij taabagelin doona waxyaabo badan oo dadka ka qarsoon mawduucan kaga qayb qaadanayo hadduu alla ii suurto geliyo waxaan ugu magac daray ama ugu wanqalay hirgelinta iyo dhamaystirka rajada runtii waa magaca guud aan isleeyahay wuxuunbuu taabagelin karaa insha allahu tacaala mawduucan dhex geli doona haddii ilaahay uu ii suurto geliyo noloshu waxay u baahan tahay halgan iyo hujuum runtii inaad nolosha la hangaltaana waxay kaaga baahan tahay inaad u dhabar adeegto waxyaabaha kaaga imanaya runtii waxaa habboon qof kasta inuu dhiiri geliyo hanka uu leeyahay iyo halka uu rajadiisu uga yeedhayso alxamdulilah runtii waxaa jira dad badan oo ka guun gaadhay gelinta iyo dhamaystirka rajada runtii su-aasha habboon waxay tahay wax kasta horta la bilaabayo wuxuu leeyahay imtixaan runtii haddaba su-aal inaad naftaada weydiiso inay habboon tahay ayaa fiican oo su-aashaan waxaan saran karaa waxay tahay adigu ma tahay qof ka gudbi karaa dhibaatooyin kasta oo kaga iman karaa dhanka bulshada runtii haa way dhici kartaa inaad ku guul daraysato dhibaatooyinka ama imtixaanaadka kaaga imanaya dhanka bulshada laakiin hal mid uunbaad kaga guul daraysan kartaa inaad imtixaanaadkaa ku guul daraysato hal mid uunbaa kuu suurtagelin karta ta kuu suurtagelin kartaa waxay tahay in aad yeelan weydo adigu waxaa la dhaho siqatu nafsi ama kalsoonida nafta haddaad leedahay kalsooni mar kastana dhiiri geliso kuna casuunto naftaada inaad tahay qof wax qaban karaa meelna gaari karaya waxaad u babacdhigi karaysaa mar kasta inaad gaadho halka aad hiigsanayso marka ugu horeysa waa inaad aamintaa nimcooyinka ilaahay leeyahay inay fara badan yihiin sidoo kale waa inaad adigu xaqiiqsataa nimco kasta oo ilaahay keeno inay leedahay imtixaankaa waxaa lagaga gudbi karaa inaad yeelato siqatu nafsi inaad yeelato samir iyo dulqaad sida diintu ina ku tiri haddaba haddii aad tahay qof samir leh waxaad ka gudbi karaysaa waxaad u dhabar adeegi karaysaa deelqaaf kasta oo kaaga yimaada dhanka bulshada runtii waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku guul daraysan karaan inay ka gudbaan nolosha laakiin taa waxaa kuu suurtagelin karaysaa in aad adigu samirkaagu noqon waayo mid taabagala gaadhina waaya halkii aad u baahan tahay anigu maxamed saax maaraan ahay maanta haddaan nolosha ka dhaco ama aan ku guul daraysto macnaheedu ma aha inaan ama waddanka ka tahriibo ama aan anigu isdhiibo oo nolosha meel ka fadhiisto waxaad aamintaa maanta haddaad guul daraysato ama aad dhammaystiri kari weydo rajadaada inuu jiro allihii shalay taada dib u dhigay ta walaalkaana hore u dhigay waxaad aamintaa ilaahay imtixaanadiisu inay badan yihiin runtiina haddaad mid iyo 2 iyo 3ba u samirto inaad marka dambe noloshaada ay gaari doonto barwaaqo runtii inaad taabageliso iyo inaad tusmayso inaad tiiriso
iyo inaad turxaanta iyo tuurta ka bi'iso iyo inaad bilaa tarbiic ka dhigto yoolkaagu halkuu gaadhsiisan yahay waxay ku xidhan tahay inaad dhiiri geliso naftaada ama shakhsiyaddaada iyo ka dhabaynta hiigsiga aad ka leedahay hadafka nolosha. ku hami mar kasta kuna hiro, ku dhaqan kuna dhegnow, ku tol oo ku taabageli yoolkaaga dhiirigelin iyo dhabar adayg si aad u hesho han iyo hiigsi fog. mar kasta waxaan rajaynayaa inaad noqoto qof ku kalsoon noloshiisa. mar kasta waxaan runtii aad filataa noloshaadana naftaadana u sheegtaa inaad tahay haliyey meel gaari kara, inaad tahay qof maanta la hiigsan karo, beri la hiigsan karo, isaguna ka gaari kara nolosha hadaf qiimo leh. runtii waxaan filayaa inaad iminka fahantay gundhiga mawduucayga oo ah dhiirigelinta iyo dhammaystirka rajada. runtii mar kasta waxaan kula dardaarmayaa adiga iyo naftaydaba inaad ka mira dhaliso, inaad gaadho han iyo hiigsi dhammaystiran. waxaan ku soo gebagabaynayaa wanqalka barnaamijka oo ah mar kasta iyo meel kasta u hiili haliyeyga han kale.